السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا إذن سلامي صاحبيال ميل كستا أو أجوكتان ومركلة إيا سعيد حقا وما أنت إذين وضا warbixin aan ugu magac daray taladan fudud ayaa bedeli karta aragtidaada oo dhan. Waa tahay tusaalaha koowaad. Si kasta oo aad ugu muuqato qof qurux badan oo kaamila, ogow qof walba noloshiisa qof kale ayaa leh oo gacanta ay ugu jirtaa. Markaad si dhab ah u fahamto taladan, qofka quruxda badan ee quman ee aad ku qanacsan tahay wuxuu si lama filaan ah u noqdaa qof caadi ah oo adiga agtaada jooga. kamana baqaysid inaad u dhawaatid. Sheekada markaan saa ku leeyahay waxay xabaarsan tahay waxyaalo badan oo isku tidcan ama isku sidkan. Tusaale, anigu ma ahin qofkii ugu horeeyay ee si dhab ah u muujiya xiisaha sheekada uu warinayo. Kaliya kuma eka muuqaalayn warbixintan, laakiin waxaa raacsan shakhsiyeyn. Tusmada koowaad. Adiga noloshaada. Ma jiro qof raba qof u furan qof walba. Haddaba sheekadan aad u faham macnaha ay xambaarsan tahay waxay ka tarjumayso. Marka aan ku leeyahay ma jiro qof raba qof u furan qof kasta. Waa tahay qodobka ugu horeeya waxaan iba fur uga dhigayaa waxa la yiraahdo wuu ixanibay way ixanibtay. Yacni block qofka la saaro. Muxuu yahay? Siyaabo kala duwan ayuu block ku yimaadaa. Laakiin ani waxaan ku soo koobayaa waxaan u arkaa wax lagu qoslo inaad ka khatar badan tahay iyaga, waana taa sababta lagu xanibay. Waxay noqon kartaa nooc shucuur ku salaysan ama cid maalgashi samaynaysa ama badan ka leh kiiskaaga. Kaliya waa ruux u buuxsantay nacayb. Markaas si kastaba ha lagu baloogo, qaladka adigu waad yeelan kartaa. Haddana sidoo kale waa lagugu gafi karaa. Marka baloogow intaasi haynagaga ekaado. Waa tahay aan u gudba marka sheekada la yiraahdo haddii ay tahay inaad qof ka codsato inuu kuu sameeyo wax yar ee adiga kuu gaar ah, adiga oo u sheegaya inaad u qalantay si wanaagsan in lagula dhaqmay, taasi oo ah wanaag dartii oo aad samaysay. Waa in lagaa tago waayo uma qalintid nabadda meesha taal. sheekadan aad u faham. Waxaad samaynaysaa qof aad wax xaan fashay ama ha noqoto xaqi gacanta ama ha noqoto waxaan ka hadlayaa hantida ama ha noqoto inaad afku difaacdo ama ha noqoto inaad si kale ugu naxariisato. Haddana waxaad doonaysaa abaalgud inuu qofkaasi wax aad rabtay uu ku sameeyo. Marka macnaheedu hadduu yahay waxaan ku sameeyay anna maxaad wax iigu sameeyeen weysay. Waa in laga tago saaxiib waayo uma qalantid nabadda meeshaas taala. Hagaag ha iska indha tirin calaamadaha cascas ee aad arkayso bilowgaba. Haddii kale qiimo dambe ayaa kugu kici doona sababtoo ah qofka haysta bisad waa in jiirka ama dooliga ay ka taqalusto. Taas macnaheedu ma aha in jiirka iyo bisadda uu jacayl ka dhaxeeyo. Ma la socotaa? Hagaag hadduu kugu jiro damac oo qof oo uu yahay waxa kaliya ee aad xiriir kula leedahay, markaa waxay ka dhigan tahay inaad dhab ahaan maran tahay. yacni eber zero inaad tahay. Xiriirka caafimaadka leh wuxuu ku saabsan yahay ujeeddo wadaagista himilooyinka iyo qiimaha ruuxa uu leeyahay. Markaa damacaaga hadduu halkaa yahay, saaxiib, qofkaa doontidba ahaw, wiil ama gabarba waxaa doontidba ahaw, zero ayaa tahay. nolosha waxaad u baahan tahay inaad barato inaad joojiso albaabada aad u furayso dadka sunta leh ee aad siinayso qololka maskaxdaada. Hadhow waxaad raadin doontaa si aad isaga saari lahayd. Waqti dheer oo bogsasho ah ayayna kugu qaadan doontaa. Markaa ka fikir. Open ha noqon. Waataan ku bilaabay sheekadii ahayd ma jiro qof raba qof walba u furan. waxaa habboon inaad eegto ficilada oo aysan ku indhasarcaadin erayada. cajiib halkaa u fiirso. Qof kasta wuu hadli karaa, wuu ciyaari karaa, laakiin waxay u baahan tahay kubad sameeyo dhab ah oo ciyaarta si fiican u ciyaara. halkaa may la fahamtay? Waxaa habboon inaad aad isaga eegto ficilada qofka shakhsiyan ficilada uu sameynayo, not waxa uu ka hadlayo ereyadiisa macmacaan ama ereyadeeda macmacaan. yacni inuusan qofkaasi ku indhasarcaadin. waa tahay lacagtan jecelahay inaan ka hadlo. maxay yihiin waxyaabaha aan cidna kaaga warramin, yacni qofna kuu sheegin?
haa laga yaaba inaan anigaba kuugu horeeyo tusaale haddaad rabto inaad taajir noqoto diiradda ha saarin lacagta taa beddelkeeda diiradda saar xalinta dhibaatooyinka dadka waayo waxa aad wax ku helaysaa waa dadka waxa aad wax ka faa'iidaysaa waa dadka waxa aad taajir ku noqonaysaa waa dadka marka haddii focuskaaga ama diiraddaadu ay lacagta noqoto waxaad waayi doontaa dadkii aad lacagta ka samayn lahayd marka waxa habboon dadku waxay u baahan yihiin inaad maskaxda ku hayso xilliyada adag weliba marka abaaraha dhibaatooyinka fatahaadaha marka ay cudurrada yimaadaan waxaa la rabaa qofka ugu horeeya ee waxbixinta inaad adigu noqoto maalka iyo cilmigana bixinta ayay ku barakoobaan hantidu ma aha mid u dhiganta heerka caqli ee aad haysato u fiirsaya hantidu ma aha mid u dhiganta heerka caqli ee aad leedahay ama aad haysato lacagtu waa dhalanteed waxa adduunka uu u maleeyo inay mudan tahay runta ayaa ah inaad ka qiimo badan tahay adiga shakhsiyan inta aad moodayso waa haddii aad baran karto sida loo qiimeeyo waqtiga haddaad aragto qof lacagtiisa ka faa'iidaysanaya wuxuu yaqaanaa waqtiga ku habboon ee lacagtaasi la bixiyo ama laga ganacsado xirfadda adduunka ugu qiimaha badani waa fahamka awoodda ereyada taana waa sababta dadka adduunka xukumaa ay u isticmaalaan erayo wax beddela cajiib taana ugu xusuusnow hadal aad maalin maqashay ayaa noloshaadoo dhan beddeli kara dadka qaarkii waxay qabaan fikrad qaldan oo ah in lacagta mooye aan wax kale lagu cabiri karin haddii kale qiimo ma leh lacag ma haysataa yes you can do whatever you like laakiin taas sax ma aha taas sax ma aha waan ku celinayaa qiimaha dhabta ahi waa walax asal ah oo aan la qiyaasi karin marka lacagta wax ma xukunto maantaad haysataa beriyaad waayeysaa imisaa shalay taajiriin ahaa oo maanta faqiir ah imisaa faqiir shalay ahaa oo maanta taajiriin ah waa isbeddel ya alyawm alcasal ayay tiraa alyawm albasal carabta saasay tiraahdaa